muddo 3 cisho ah ayay ku sameeyaan aqalka ugu ashqaraarka badan adduunka si ay ubadkooda ugu korsadaan, dhaxanta uga galaan, roobka uga jirsadaan, dabaylaha gaashaan uga dhigtaan, qorraxda uga harsadaan, isla markaana cadowga uga fogeeyaan ukuntooda. inkasta oo masasku ay u nugul yihiin ayay buulkooda ay ku ilaaxiraan meel aan bahalku soo gaari karin. xayawaanka dhirta fuula sida bisadda, haramcadka iyo qaar kale ayaa ka quustay in ay gaaraan halka ay ka lalmiyeen aqalkan oo aad moodid in uu dhisay injineer muddo dheer ku soo jiray sida guryaha loo dhiso. ruuxanka waa loogu talagalay oo waxba kama qaadi karo. looga baqi maayo in uu guriga dhulka uu ku soo dhaco. waxa uu aqalku uu ka laadlaadaa laan jilicsan oo aan cadowgu soo tiigsan karin. iridda laga galo hoos ayaa loo foororiyey si aan biyaha roobka u soo gelin, ukunta amaba ilmaha dhowaan dilaacay waxyeello u soo gaarin. caleemaha ugu qurxoon iyo laamaha ugu jilicsan ayaa laga unkay. xargaha lagu tidcay waa kuwo dhan kasta la isaga dusiyey, waxaana ay iska bareejeeyeen islaamihii darinta amaba salliga Soomaaliga cawda iyo maydhaxda ka samayn jiray. kuwaani se mudac iyo wax ay ku daabacaan ma haystaan oo afkooda ayaa mudac iyo maxaar u ah. laba ayaa loo dhisaa oo ninku waxa uu dhismaha uu kaga jiraa dhinaciisa. waa hawl iyo shaqo wadareed uu qoyska u dhan yahay. qoyskaasi oo ka kooban hooyo iyo aabbe, dhowaanse waxaa ku soo biiri doona 3 carruur ah oo ka dhalan doonta ukunta halkaa la dhigi doono. ka sokow bay'ada oo ah meel ay cosabka iyo biyuhu ay isdhex yaalaan, haddana waxaa soo jiidasho gaar ah leh heesaha la isu jiibinayo iyo codadka meesha ka baxaya oo kaalin weyn ka qaata qurxinta jawiga. buulka shimbirta biyuhu ma soo gaaraan, dabayshu ma soo gasho. masaska ugu halista badanna waa laga taxadaray si aanay ukunta uga cunin. sheekadooduna waxa ay ku soo ururtay gaaf meer iyo goolibaar, taasi oo ay soo xusuusisay midhaha hees hadda ka hor aan u sameeyey fanaanada Deeqa Afro oo oranaysay aawada la kulankaaga orad maysa soo qaaday anoo adigu goobaya maxaan kugu agmeeraystay. hadda maskii baa xaaladda ku sugan. 2 iridood ayaa loo sameeyey si looga waalo maska oo loo khaldo. irid beenaad ayaa laga ag unkay ilinka runta ah ee laga galo aqalka. maska ayaa loogu talagalay in uu ku hungoobo oo uu meel bannaan ah uu afka saaro. waa taran badan yihiin oo sanadkii dhowr jeer ayay dhalaan. waxaase ugu qurux badan uguna xariifsan noocyada loo yaqaano weaver bird oo ah jaad midabyo ashqaraar leh uunka ku asqaysiiya, kuwaasi oo dadka jeclaysiiya in kaynta lagu nagaado ama marar badan loo soo dalxiis iyo daawasho tago. dadka qaar baa u yaqaana dhaay, halka meelo kalena looga yeero yaryaro amaba dayn hilato. waa noocyo aad u fara badan oo 10 qaybood u sii kala baxa marka loo eego xagga midabka iyo sida ay u nool yihiin. inkasta oo ay cabir ahaan ay isku dhow yihiin, laguna xisaabiyo shimbiraha yaryar. waa saaxiib wanaagsan, dadkana aad ugama fogaadaan. noocyada ugu quruxda badan ayaa ah kuwa dhirta ka soo laadlaadiya aqalada la yaabka leh ee laga fiirsaday. masalada miisaankeeda leh ee mudan in la dul istaaga ayaa ah tabaryarideeda iyo quruxda aqalka ay muddada gaaban ay ku dhisato ee ay isla cawska iyo caleemaha ay ka falkiso. waxaa la isku raacay in ay tahay shimbir aad u caqli badan. abwaan xasan sheekh muumin ayaa horay u sheegay oo waakiilaha goroyadu ilmaheedu aroori bay dhigtaayo aboodigu kulaaya. shimbirtuna aroosay ila xidho ammaanabay ubadkeeda siixisaa. kala awran labaduye edabtiya aqoontiya asluubtay isku dhaafeen. caqligii wanaagsani itaal inuu ka roon yahay bal eegoo u fiirsada. waa run oo goroyada iyo baalaley dhowr ah oo kale bannaanka ayay ilmahooda dhigaan, kuwaasi oo baylaha u ah weerarka xayawaanka kale, balse noocan ilmahooda lama gaari karo halka ay dhigaan iyo sida ay ammaankooda ay u sugaan. weaver birds oo iyaga laftooda kala midab iyo qoysas ah waxa ay ka farcamaan beesha weyn ee la isku yidhaahdo Prosidae, kuwaasi oo ah shimbiro yaryar oo ashqaraar leh, lagamana waayo doogga iyo xareedda. inkasta oo tiro aan badnayn lagu arkay qaaradda Asia, haddana waxaa la hubaa in hoygooda runta ahi uu yahay hooyada noolaha badankii saldhigga u ah waa qaaradda Afrika. magaca la siiyey ee weaver bird laftiisa ayaa loola jeedaa shimbirihii aqalka qurxoon farsamayn jiray. wax badan ayay degalbaarayaasha iyo kuwa abla-ableeya xayawaanku documentary ay ka sameeyeen iyaga oo u kuurgalay habka ay u dhaqan yihiin iyo meertadooda nololeed. rabaayadda waa ay galaan oo guryaha ayaa lagu dhaqdaa si xaafadda loogu quruxsado. marna shimbir ma la saaxiibtay? meeshii aad ku aragto miyaad cayrisaa mise cunto ayaad u daadisaa adiga oo muujinaya gacaltooyo? nooca aad tahay waannu iska jeclaan lahayn adiga oo faallada hoose noogu sheegaya. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha naga ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo.
haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale hanaga ilaawin in muuqaalkan aad sheergalayso asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax u ogaadaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska sidoo kale warbixinada Bulqaas Media waxaad ka daalan kartaan YouTube channelka Bulqaas Media aad baad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu